waqtigaaga dumarka waqti dheer ha ka fogaanin inta bilawga aad ay kugu xiisee waxay ku soo qoree inay kula hadashay isku dayay way xanuunsanee laakiin waqtiga wuxuu baraa ina la'aantaada ay noolaa karto waqtigay ku baahan tahay inay ku heli karin xitaa ogaaw hadday ku ilowdane aaday u adkaanee ogaawne waqtiga adiga u soo baahatid ama u soo xiistid qoftii koow inay meesha ay joogin qof adkaati oo u barati la'aantaada inay noolaa karto meesha inay joogto marka qabooban haddaa ka aragtid ha ula yaabin adigaa ka dhigtay saas gabadhan waxay soo qortay arka waxay tiri wiilasha oo quraxda badan oo casaanka ah aad baan u doonayaa ay tiri laakiin waxaan maqli waa dokhamiis waay tiri horta waxaan ku sheegaa koow horta ibn aadanka waxa waaye ama ragga iyo dumarkaba waxaa lagu qaataa qalbigiisa ma fiican yahay akhlaaq ma leeyahay ma naxariis badan yahay taasaa la fiiriyaa mahane ma ku xirno labada sinji maba ku xirno walaa madow walaa casaan ma ku xirno wiilkan kalena adiga kaas oo kalaa lagu raadinaa fiiri wuxuu soo qoray videoga hadda ugu dambeeyey aan soo qoray gabdhaha haloo naxariisto dumarka hala furin ha lagu degdegin videogaasoo ku soo qoray arag kommentigaas adiga ninkaas oo kalaa lagu raadinaa marka oo kaa naxeenin habeenkiina oo laba feer markuu xawadka ku geliyay ma aragti oo sariirta ku saarayo oo burjikadana intii oo dab iyo waxa ka heri kulli madax kugu shuwaayo maanta oo ay ka hayso oo darac kugu jaajeexaayo oo banaanka hool adag ku dhiibayo oo naxariis dhan ku tuseenin kaas oo kala rabtaa marka mooska waxa waaye wuxuu ka mid yahay cuntooyinka ugu fiican oo maskaxda uroon iyo xasuusta taas daraadeeda waaye dadkii oo zaman hore waxay ugu bixiyeen mooska cuntada oo dadka oo xikmada leh waaye tan oo idinka dhanna moogeen waxa waaye potassiumka waaye potassiumka wadnaha dhan oo uroon yahay wadnahana jirkaaga dhan meeshii laga hay dhan waaye potassiumka dad badan waxaa jira oo qaafil ka ahaa jira jirkooda waxaa laga yaabaa inuu ku yar yahay mooska markoona cagaar yahay oo biseel oo naqanin faa'iidadiisna waa nooc kale waaye taas fiber aa si fiican ugu jiraa faa'iidada labaadna waxa waaye sokorta aaday ugu yar tahay markaa cuntidna waxa waaye calooshaada isla markii mashiidaysa caloosha wuxuu degaa ilaa mandhaciirihii degaa meeshay ka bilaabana faa'iidadiisa maxaa dhacay ma og tahay bakteeriyada oo fiican oo calooshaada ku jirto bakteeriyadaas waxa waaye aaduu u xoojinaa mooska oo cagaarka ah alla hooya macaan badnaa sabirkan qofka oo sabiray waa jirada ninkaas maxaa dhacay ma og tihiin wuxuu la yaabay hooyadan way badbaadi lahayd labadaas shabeel way ka dheereed caruurteeda u dhawaay laakiin dibay u soo laabatay nafsadeeda ay labadii shabeel ay siisay caruurteeda siday waqti ku helaan ay ku cararaan ninka oo sabiray wuxuu la yaabay xitaa ayadoo marka qoorta laga goosanayay wejigeeda fiiriya labadeeda caruuray fiirinaysay siday ku badbaadaan ayadoona habi ah wuxuu dhahay yani dunida dhan ma jiro dhahay qof oo nafsadiisa qof kale u halaagayo laakiin hooyo dhahay yani caruurteeda daraadeeda nafsadeeda way u halaagayo dhahay ninkaas jiraa ku dhacay hadda fiiri sagaaradana wejigeeda fiiriya hooyo waa saas waaye wejigeeda fiiriya subxaan allah caloosha markaa iska jaraayo zabiib ma cuni karaa malab ma cuni karaa cimba ma cuni karaa furutada macaanta dhan gebigeeda ma cuni karaa jawaabtana anaan ii siinaa tanna waxay ka mid tahay khibrada oo macalinka ay ku xiran tahay shaqadeeda sirteeda badanaan waa idiin sii waxa waaye ibn aadan hadduu awaal leeyahay waxa waaye mar walba wuxuu ku dhahaa jazaakallah kheer laakiin dadka qaarkooda waxa waaye shaqadooda maahan waxay rabaan le ka qaadanaya waa iska baxaan laakiin ani waan ii siinaa liwajhiillah intaasba waan ii sii laakiin waxaan ii sheegaa dadka oo rabaan horta macalin ina u noqdo ama aan coach gareeya miisaan dhimida jirdhiska nutritionka waxyaalo badan daalka inaan ka caabino mar walba instagramka geeska way soo raaci karaan dadkan caawinihii way arki karaan horta waxaan ii sheegaa youtube-na waa kahay videoyaal badan aan kusoo sameeyey furuutada macaanka malabkana oo ka mid ah zabiibka intaas dhan waxa waaye maya iska yaree insuliinka kor u kicinaa sixirka dumarka kaligooda kusoo koobin raggana dumarka way sixraan way jirtaa taas run waaye laakiin waxaa u badan dumarka u badan beentee miya
dumarka u badan waxa oo sheekhyaalkan oo wax iska dhigayaan culamada oo u tagaan oo sixirka kasoo sameeyaan aniga shuyuukhdan oo la yaqaana ma ka hadlooyaa culamada waxa waaye madaxay naga saaran yihiin kuwaas ani waxaan ka hadlooyaa shuyuukhda kuwaan iska dhigayaan oo tahliisha oo biyaha ku shubayaan oo ku dhahayaan doora oo madaxeeda madow ah dibkeeda gaduud ah noocaas soo gad ninka u kari haddowba sheekhba oo waxyaalahaas hadduu kula imaado sheekh ma ahan hadduu qur'aanka ku qabeysanayo hadduu ku dhahoba ninkaaga saan isaan u sameey asigoo ogeen xaanshadan firaashka hoostiis u geli wax walbo ogaaw adiga waxa waaye gaalnimo aad doorati adduunkaaga waxa waaye aakhiradaada ku gadati su-aal muhiim ah waxaa dhahdi markaan weight loss sameynayo ama baruurta haddaan rabo inaan iska jaro yacni murqahana ma dhisi karaa taas waa dhisi kartaa murqaha laakiin waxay ku xiran tahay weligaaga markaa weight loss sameynaysid borotiinka kor u qaad waan igu celceliyaa mar walbo karbohaydraadka hoos u dhig xaaladaasna waxa waaye waxay ka caawineen murqahaaga jirkaaga inay ku heraan inta oo murqa laheyd murqa cuseeb ma dhisoosid dad qaar way jiraan oo markay weight loss sameynayaan oo murqa cuseeb u dhismaayo laakiin taas waa genetic waa farac waaye laakiin dadka badanaan waxa waaye waxaa laga rabaa murqaha oo jirkaaga inta ku jiraan inaad celisid taasna waxaa ku celi kartaa borotiinkana maxaa waaye hilibka kaluunka doorada saddexdan waa kor inaa u qaadid waaye laakiin waxaana laga rabaa inaa oo yani hurdadaadani inay fiicnaato biyaha caboogaagana inuu aad u fiicnaado halkan wax iga qaado iska bax haddaa rabtid taasna waxa waaye haddaa muraad haddaa leedihid hadaf haddaa leedihid noloshaada haddaa rabtid meel inaad gaartid weligaaga qof dhan waxaa u sheegin maxaa dhacay ma og tahay cilmiga hadda ugu dambeeya xataa waxaa la ogaaday qofka kale hadduu u sheego wuxuu rabo mustaqbalka inuu sameeyo inuu sameynaynin yani cilmiga hadda waayaa nabigaana sheegay calayhi salaatu wassalaam muxuu dhahay nabiga istaciinuu biqadaa'i xawaa'ijikum bilkitmaan yani muraad haddaa leedihid dad dhan ha u sheegin ilaahayna muxuu dhahay wa amaa binicmati rabbika faxadith taas waxa waaye in nicmada ilaahay kusii sheeg waxa waaye markaa muraadka aa leedihid markaa gaartid kadib le waaye laakiin ka hore weligaaga dad waxa u sheegin nabigu wuxuu dhahay calayhi salaatu wassalaam inna likulli nicmatin maxsuud nicmo kasto qofaa kaa xasdaa marka taas maskaxdaada geli xaaskaada telefoonkeeda ma baari kartaa ayadana telefoonkaaga ma baari kartaa markaa muqdisho geshid oo kale adigoo ogeen inay baarto taas waa la diidi sheekhan hadda dhegaysanayay wuxuu daliil ahaan u soo qaati ilaahay caza wajal wuxuu dhahay walaa tajassasuu nabigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay idaa shakakta falaa tuxaqiq yacni wax hadduu shaki kaa galo hadda daba raacin marka gurigaba hadduu shakile ku dhisan yahay gurigaas guri oo asaasan faa'iida leh maba ahaba guriga oo muslimka ninka iyo xaaskiisa waa shaki la'aan inuu ku dhisnaadaa marka iska jira badanaankiina waxa waaye waxaa isu weydiisiin jimicsiga see loo sameeyaa caloosha see loo jaraa laakiin qof isoo weydiiyaan waaye maskaxda see jimicsi loogu sameeyaa maskaxda waxa jimicsi loogu sameeyo waa gadaasheeda waa ujeedii mahano buugaagtaas waaye u baro inaa mar walba buug akhrisid rootiinka dhigo haween walba intaa seexanin isku day adigoo buug akhrinin inaaba jiifanin yacni taas wax caada ah ha kuu naqato kullama buug sii akhrisid aqligaagana waxa waa sii kordhaa ogaawne kullama buug oo sii akhrisid adduunka waxyaala badan aa maskaxdaada ku furmaa internetkana waad ka maarmee telefishinkana waad ka maarmee waxaa ogaanay xataa adigaaba isdareemaya stresskaaga dhan inuu degooyo isku day wax badan inaa akhrisid maa wax yar ka akhri xitaa haddaa oo yani africa dhan hadday bara lahaayeen khalinka iyo buugga inaa oo macnaato laisku xarbiyo dhiig yar ma bixi laheen ragga dhaafiyaa waa mataqaaniin waxa waaye ninkii hooyadiisa dunida ugu jecel walaashiisna u naxariisto qoftou jecel yahayna daacad u ah gabadhay ayada u dhalaysana ou jeclaa doono jaceelka maahan 24 sac telefoon inaan ku wada hadalno jaceelkana maahan daqiiqa walba inaan kugu soo celiyo aan ku dhaho waa ku jeclahay jaceelkana maahan jid walba iyo maqaayo walba inaan wada taagnaano
jaceylkana maahan wax aad u khafiif badan jaceylkana maahan wax aad u culays badan jaceylka maahan khoortaada inaan mar walba aan fadhiyo jaceylka waxa waaye waqtigan ku baahanahay inaan ku heli karo jaceylka waxa waaye gadaasheeda inaa iga dacaysid farxadeeda ila faraxdid murugteedana ila murgootid inaa si fiican ii qadirtid dhaxdeenana mar walba xiisa inuu dhex yaalnaado jaceylka waxa waaye farxad iyo amaan iyo garab waaye صومالي وأفتخر وحنيني سيستمر وبلادي